السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن أخيار ميل والبا جوجتان waxaan safar dalxiis ah ku nimid eriyadan la isku yiraahdo coast ama xeebaha gobolada xeebaha dhaca ee Kenya. Waxaan rabnaa safarkan safar dalxiis oo aad u qurux badan inuu noqdo. Waxaan rabnaa inaan aadno Watamu, Malindi eriyadan oo idil aan aadno. Watamu oo Malindi waxaan rabnaa inaan ka aadno xayawaanada beeraha lagu xanaaneeyo xayawaanada aan soo daawano shimbiraha maxaa la yiraahdaa shimbiraha masaska waxaanoo idil aan soo daawano sidoo kale waxaan rabnaa taalada caanka ay ku tahay loo dhisay badmareenkii weynaa ee Portugal u dhashay Vasco da Gama inaan tagno iyadana sidoo kale xeebtana kama marno la socod wanaagsan fadlan hadaa ku cusub tahay channel-keenan subscribe inoo saar videogana share garay video sidoo kale mar labaadna like garay la socod wanaagsan Good. Gana dibaatayno ya. Udanna kuletea shida. Sawa. ودالا بلا عقولك عمود شغلنا معنا waxaan kulanay saaxiib agteena qaali ku ah oo aan inta badan aan ka daawano social media xeebahaana nagu matala hadaan Soomaali nahay waa saaxiibkeena funny boy ibigi waa wada taqaano Soomaalida meel walba ay joogaan waa la wada yaqaana hadii Soomaali qofku uu yahay maqaarkiisa ka taqaanaan maanta waxaan ku wada joognaa oo ku wada kulanay si nasiib ah anagoona ballamin Malindi magaalo la yiraahdo soo dhawow waa ku dhawnahay meesha waxaa joognaa Falcon la yiraahdo waxa waay Soomaalida waxa inay imaato meeshan waxa waay wax badan oo yaalina ka baranay wax faa'iido badan ay leedahay ani xitaa maanta maalinta ugu horeysay laakiin waxa arkay shimbiro kala duwan arkay daftayaal wali arkin soo ku soo dhawaada big of Somali waxoogaa oo dhiwaya maxaa leedahay big of Somali laba iyo hal ka kasa wax dheh samaaje af Somali ku hada inta ka kasaysid سلام صومالي سلام ما شاء الله waxaan joognaa beerta xayawaanada Malindi ee dalxiisayaasha lacagta iyo waqtiga tirada badan ku bixiyaan nala soco nala daawo adoona lacag bixinin waxaan joognaa beerta xayawaanada lagu xanaaneeyo ee Malindi waxa horteena taagan diin qolyaha beertan gacanta ku hayo mas'uuliyadeeda hayo ama dawladda ka tirsan waxay leeyihiin diinka wuxuu jiraa ku dhawaad 131 sano macnaheedu waxa weeyaan dagaalka koowaad dunida iyo kan labaad dunida xaadir buu ahaa diinka wuxuu yiri sidoo kaleeto Albert wuxuu noo sheegay diinkan in Afrika laba wadan oo kaliya laga helo Kenya asagoo yar la keenay halka lagu xanaanay 131 maadaama uu jiro wuxuu sheegay sidoo kaleeto cimriga uu gaaro inuu yahay diinka qayb ahaan kuwa noocaan ah inay gaaraan 300 ilaa 400 sano inay gaaraan diinkan waa ka duwan yahay diimankii aan naqaanay intuu la eg yahay waad qiyaasi kartaan weynkiisu intuu la eg yahay diimankii aan naqaanay ma aha waka waxa la siiyaa moos iyo qudaar iyo waxyaabahan in la siiyo noo sheegay sidoo kale hilibkaas soo doontay training maskan u jeedaan waxa la yiraahdaa uu yiri black mamba black soo u socday waa naga dabiimid diidin soo u socday أنا قد يمت
jibisada qayb ka mid ah waa beton al yiraahdaa uu taagan yahay kan No, it is the young one. ilaahay ha naga badbaadiyo ilaahay na kala leexinay bahare And throw it. waxaan xoog iyo xeelad u hayno maaha Nauma na anatema. ugu dambeyn aabihii maskaan u imaanay waa taqaanaan kulleyba duurjoogta liwaxda uga caansan masaskana kobra uga caansan kabra la joognaa kan gumays weeyaan gumayskaan naqaano waaye isagana meeshaan beertaana lagu xanaaneeyaa uu ka mid yahay galleerka shimbirkan waa galleerka aan wada naqaano inta ugu badan oo Soomaali iyo dhulkan oo idil aan ku aragno asagana xayawaanada halkan jooga ayuu ka mid yahay oo aan aqoonsanay kuwa qaar inkastoo aan naqaano way kala baxaan la yiri kan laakiin galleer way soo markaan iri galleer weeyaan uu igu yiri ninkii sax waa uu yiri soo xayawaanada waa noolaha nagaga tira badan haddaan bini aadan nahay koonkan ku dul nool xayawaanada nagaga tira badan nolosha koonkan dhulka korkiisa aan ku haysano waxay muhiim u tahay annaga markii loo fiiriyo xayawaanada kaga muhiimsan ayagaan naga tira badan waa wada taqaanaan waa gumayskii waagii hore ummadaha ay sharaysan jireen markay arkaan waa gumayskii aan wada naqaanay la wada sharaysan jiray waagii hore gumays ciday kor u soo degto wadaadii culumii waxbaa la isku yeeri jiray waa faateena balayna gumayskaas ag taaganna annaga lugayn ugu soo raadsanay ilaahay nabada naga bixi shirki weeyaan ilaah unbaa khayrka iyo sharta gacantiisa ku jirta rasuulka sallallahu wasalaamu alayhi inuu la dagaalamo khuraafaadka iyo shirkiga dartiisa loo soo diray shirkiga waxa ka mid ahayd aaminaada dad tira badan ee aaminsan yihiin oo annaga naga mid ah in gumaysta imaatinkeeda uu shar yahay ay sharaysan jireen bun baa la hagaajin jiray gumaysa noo imaatay allah ali jiray ilaahay khayr iyo wanaag hana siiyo dhaqanka Kenyaanka ay leeyihiin halka ay ku soo bandhigaan magaalada Malindi la socod wanaagsan Afrika qaabkay u noolaan jirtay qaabkay ahaan jirtay qaabka alaabaha loo isticmaali jiray intaanan exportkii barnaamijkan uusan imaanin ka hor waxyaabihii lagu noolaan jiray si ay u ogaan xasuusteena la socod wanaagsan waxyaabahan waa waxyaabihii dhaqanka gabdhaha ay dhigaa ku xirtaan waa taqaanaan aan u malaynaa kulleyba kuwan qurux ahaana loo isticmaalaa katiinadan diamondka ka samaysan ama dahabka ka samaysan intaysan imaanin ka hor weeyaan baashaan ciyaari jirna naftarkeeda waat لاستيك أذكر الله يلي وأنا نقولين وأنا لإيبيا سوق أهان لو إيبيا سودو فيس ماسك كان ماما ini face mask. Face mask. Oh, أنا تومي أجي. Oh. face mask ويا أنا يتري. واجي هرد قالوا مركي لقلا إنسان لو استعمالي جري. أنا تومي أنا.
nani alikuwa tumia Hiyo eh hiyo ni ya decoration tu. oh decoration Decoration. oh decoration ahaan loo isticmaalay leedahay hooyo mama oh saxmadan Shiinayska ay soo sameeyeen intaan la gaarin ka hor xurbumahan ayaa wax ku isticmaali jirnay si fiican oo u naqaana xurbuntan geeday ka samaysantay anaga maalmahan dambe waxa u maleynaa bunki iyo camboolada bis ku dambeeya waa laakiin aan soor iyo wax ku isticmaali jirnay xurbin weeyaan ayadoo la kala reeyay qurux loo yeelay laga dhigay fan in wadankan uu matalo loo ekeysiyay annaga waa inaan ku dadaalnaa waa inaan maalgelinaa niyad ahaan aan dhisnaa dhaqaale ahaan aan dhisnaa qolyaha waxaan hagaajinaa baasheeno kalar loo yeelay oo kaliya weeyaan xayawaanadina waa kuwana xayawaanka waxa la yiraahdaa muxuu yahay xayawaankan wiil miya wiil rhino wadankan caan uu ku yahay dalxiisayaashana way u yimaadaan daawashadiis ma aha geedkan xayawaanka naftirkiisa joogo loo yimaada la daawada wiil sawiradu ugu caansan farshaxamada weeyaan farshaxan meel walba ku arkay Kenya meel walba farshaxanayaan farshaxamada waxyaabaha ay jecel yihiin ee cadaanka markay yimaadaan daawadaan weeyaan way ku badan yihiin meel walba aad tagtid magaalo walba aad tagtid dhaqanka iyo hidaha waxyaabaha xambaarsan waad ku arkaysaa farshaxamada ku arkay xayawaanada decoration ahaan loo isticmaalaa kan waxaan u malaynayaa gacan ku sawiran horay meel inaa ugu arkaan u malaynaa ma aqaan meeshaan ku arkay sababaa jirtay loo isticmaalo ma video aan ka daawaday ma aqaan soo loo isticmaali jirkan waagii hore gacan caadi ah waay dhabarkaa lagu xoqdaa ay tiri maamada dhabarkaa lagu xoqdaa marka la qabeysanayo dhabarkaa lagu xoqdaa halka aan haddeer ka isticmaalno marada ayaga laakiin dhabar ahaan ay u isticmaali jiray waagii hore kabtan waa lagu xirtaa marka howlo badan buu qabtaa howlo badan ya dhaqanka iyo farshaxanka waxyaabo adag ayuu ka yahay dhaqaale soo geliya wadankan cawdan waa wada naqaanaa ayadoo la qurxiyay design loo yeelano waa bal u fiirso waa taanadii gudaha taanadii weeyaan aan isticmaalno laakiin waa la qurxiyay waxaad moodaa in taanadii caqli lagu daray si waqtiga ay ula jaan qaado taana waxaan u malaynayaa halkeedii ku hartay wili design-kan u bay taagantay soo tan way hagaajisay maamada wayna qurxisay mama hii ningabe Hiyo ni 1800 oh 1800 weeyaan leedahay ayadoo qurux badan kaleetana waa tana la moodaleeyay kor u baysaan ka tahay gudaha laakiin taan naqaanay farshaxamadeena annaga maxaan u naqaanaa farshaxamada wadankan dalxiisayaashu idil lacag ay ka reebaan dhaqaale ay wadanka soo geliyaan annaga laakiin farshaxanayaasheena maxaan u naqaanaa ma ixtiraamnaa midgaana u naqaanaa tumaala u naqaanaa dad waa bahdilna maskaxiyanaan dilnaa kow waxa wanaagsaneed inaan ayaga soo dhisno dhaqaale ahaan aan dhisno mentally ahaan aan dhisno si wadanka ay u matalaan wax soo saarna ay gacan ka geystaan wadanka wax soo saarkiisa qayb ka mid ah waxa la yiraahdaa boqolkiiba 20 ilaa 30 dalxiisayaashu ka yimaada dalxiisayaashun waxyaabaha jecel yihiin inay arkaan waxyaabihii hore la isticmaali jiray weeyaan waxyaabihii hore la isticmaali jiray halka uu ku harayna waxa weeyaan Afrikada uu ku dambeeya meelaha kale ta model waa guri walba waa model 2025 2026 saasa loo sii socdaa laakiin halkan aan taaganahay
waxyaabihii awooyaasheenna iyo dadkii naga sii horreeyey ay ku noolaan jireen qaabkay u noolaayeen haddaan rabno inaan ogaano alaabihii ay isticmaali jireen aan la kulmaynaa halkan aan ku arkaynaa la socod wanaagsan horaa u sii soconaynaa waa qurux badan yihiin dukaankan asagana sidii kuwa sanam yar weeyaan madaxiisa xayawaanada iyo sanamyada ayuu ku hagaajiyaa ma aha kuwa la caabudo waa kuwa decoration ahaan meelaha lagu qurxiyo weeyaan faanta maroodiga halkan lagu hagaajiyey qaadooyinkii la isticmaali jiray kan waa qaado waxyaabaha adag lagu qaato sababtoo halkaana fargeeta iyo qaado iswadata weeyaan dhinacna qaaday ka tahay dhinacna fargeetay ka tahay dadkii hore kuwaana isticmaali jireen haddaan la faanaynin ani adigaba inaan soo gaarnaan u malaynaa marka laga reebay dad yar waana soo gaarin qaadooyinka noocan ah oo laga sameeyey alwaaxa ama geedka la qoray laga sameeyey shiinayska intuusan imaanin ka hor ama agabyada uu sameeyey isan afrika soo weerarin ka hor waxyaabaana isticmaali jirnay awooyaasheenna aabbayaasheenna dadkii hore oo idil 100 sano ka hor waxyaabaana isticmaali jireen nitamaliza imambo dadkan waxyaabaha ay iibinayaan halkan waxyaabo ayaga gacantooda ay ku soo sameeyeen farshaxano ayaga ay soo alifteen maskaxdooda ay ka soo alifeen ay ka soo gaareen ayagoo asal ah awooyaashooda aabbayaashooda iyo dadkii hore ay ka soo gaareen weeyaan waxaanay iibinayaan ma aha wax dawlad kale intay soo samaysay ay lacag soo saaratay wixii faa'iido ayaga ay qabsadeen adna iibi inta lagu yiraahdo $5 saaro lagu yiraahdo ma aha marka waxyaabaan oo idil ayaga samaystaan baagan mujida baagii dumarka ay wax ku ridanayaan waay milshiinaskay maatay ma aha waa asal waddankaana lagu hagaajiyey kuwaan oo idil annaga ma caawinaa si fiican haddaa u fikirtaan meeshaan hadda aan taagannahay dalxiisayaasha jooga aaday u tiro badan yihiin waxbay duubayaan sida annagaa u duubanayna camal waxay intuu u yimaadeen dhaqankan oo keliya inay maxaa la yidhaahdaa i gudbiyaan waddamadooda u geeyaan dadkii hore siday u noolaan jireen u sharxaan annaga laakiin maxaa la yidhahdaa dhaqaalena halkan ay ku reebaan annaga laakiin dadkeena farshaxamada ah oo dhaqamada xambaarsan maxaan ku samaynaa maantaliyaan dilnaa dhaqaale ahaan ma caawino caqliyan lama caawiyo xataa haddaadan dhaqaale bixinaynin waa inaad dhiirigelisaa garab istaagtaa aad tirahdaan niho waddanka wax badan baad matalaad baad u haysaa annaga yaana matalo kuwaana la rabay inayna matalaan qolyahana matalo ma naqaan annaga namare sawirada dadkii hore saanay u samaysnaan jireen salaama ale maasha Allah salaama asante farshaxamiiste weeyaan ninkan farshaxamiistaha ugu caansan eriyadan weeyaan sinte mama angalini bure ini ngabe mama sawirkan waxaa idinkaga muuqda waa mid ka mid ah dadkii hore dunidan u soo maray qaabkay u yaaleen inkastoo dadkan weli ay joogaan masaay ay yihiin badda faa'iido tiro badan bay u leedahay ummadaha badda ku teedsan afrika waddamada qaar bad bay leeyihiin qaar bad ma laha waxaa badan inta aan bad lahayn badda waxyaabaha laga faa'iido waxaa ka mid ah nolol maalmeed in malaay laga raadsado oo aad heshid subaxda iyo maalinka maalin joogii la helo sidoo kaleeto in dawlad kaleeto si fudud ay wax kugu soo gaaraan dheef waxaad adiga abuuratidna u geysid waxay ayaga abuurtaan ama ay soo saaraan gacan ay ku soo saaraan sidoo kaleeto inay ku keenaan taas darteeda ba haddeer Ethiopia ayagoo 150 milyan ku dhawaad ah waxay muhiimad siinayaan inay bad helaan dad wax abuurta weeyaan gobiyada ayaga noogu yimaadaan laakiin waxay tabayaan caalamka kaleeto waxyaabaha soo saarkooda inay u geeyaan waxyaabaha ay soo saaraan caalamka kaleetana ay helaan
booskaasaa faaruq ka noqday booskaasay waxay u marayaan cir iyo dhul siday u heli lahaayeen bad idiinma sharxaayey dadka badaha ku nool xeebaha way yaqaanaan faa'iidada ay leeyihiin badda saas darteed ayagana muhiimad u siinayaan in faa'iidadaas ay ka maqan tahay tabayaan wayna raadinayaan mana istaagayaan ilaa ay ka helaan sababtoo ah afrikada inta badda leh marka la way hodansan tahay inta badda leh inta aan badda lahayn caqabad iyo waxay dareemayaan gaab aad u culus ay dareemayaan culays ay dareemayaan in wadamada badda leh aysan gaari karin ay dareemayaan xataa haddii caqligooda isticmaalaan haddii dayax gacmeed cirka u diraan kulli waxay dareemayaan badda kaalinta iyo booska ay kaga taagan tahay bay dareemayaan halka aan taagannahay waa dhul xeebeed halka aan taagannahay waa qarka Indian Ocean waxaana ka joognaa Malindi magaalo la yiraahdo halkan aan fadhiyo waa taalada caanka ka ah magaalada Malindi taaladan xaakimkii Malindi xukumi jiray 500 sano ka hor ayaa dhisay wuxuuna u dhisay asagoo ugu mahad celinay booqasho uu soo booqday nin badmareen ahaa oo u dhashay wadanka Boortaqiiska badmareenka wuxuu yimid areadan East Africa oo idil Mozambique sidoo kale Mombasa Malindi ilaa xeebaha Soomaaliya xataa wuu gaaray markuu halkan yimid ninka kaliya ka soo dhaweeyay wuxuu ahaa xaakimkii xukumi jiray magaaladan Malindi badmareenkaas waxaa la oran jiray Vasco da Gama markuu halkan yimid halkan waxay iska raaceen nin wadaad oo islaam ahaa magaaladan joogay oo asagana badmareen ahaa oo dhulka badaha yaqaanay imaatinka Vasco da Gama uu yimid areadan Kenya ama East Africa waxay ahayd mid habaw ah aqoon la'aan ayuu ku yimid wuxuu u socdaa la yiraahdaa Hindiya laakiin asagoo dhumay aqoon aan u lahayn badmareennimada buu halkan ka soo dhacay halkan xaakimkii xukumayay laba shay ayuu u sameeyay soo dhaweynta marka laga reebo taaladan iga dambayso inuu u dhisay sidoo kaleeto nin badda aqoon u leh oo halkan joogay oo Cumaaniyiinta ka haray xilliga ayuu raaciyay si uu u gaarsiiyo halkii awal uu u socday oo ahayd India Vasco da Gama inuu soo raadiyo oo areadan uu dhaqaaqo waxa sabab u ahaa qabsashadii islaamka ay qabsadeen Spain iyo Portuguese oo la oran jiray xilliga Andalus markay islaamka ay ka soo saareen Andalus ba waxay ku fikireen islaamka wax qabadka waxyaabaha ay siin jireen waxyaabaha wax ugu tiri jireen oo ay u keeni jireen caalamka ay haysteen oo idil India ilaa Afrikadan waxyaabaha ka aruuriyaan ama waxyaabaha deeqda ah raashinka iyo waxyaabaha ay ku caawin jireen Andalus ay ku caawin jireen bay ku fikireen inay helaan maadaama islaamkii meesha ay ka baxeen saas darteed Hindiya ayaa ugu badnaa waxyaabaha wax ka heli jireen Hindiyadii ayay aadeen Hindiyadii ayay raadiyeen raadintii Hindiya ay raadinayeen Vasco da Gama wuxuu ka soo dhacay halkan Malindi wuxuu soo maray Mozambique dagaal buu ku galay lama soo dhaweynin Mombasa sidoo kale dagaal baa lagu qabtay waa lama soo dhaweynin halkan uu ka soo dhacay meesha kaliya lagu soo dhaweeyay halkan bay ahayd waa magaalada Malindi